بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وبرنامج كيني تربية أرديغا iyo qaybtiisa saddexaad. qayb saddexaad waxaan ku qaadanaynaa ardayga iyo asxaabtiisa, maadaama laba qayb hore aan soo qaadanay. qaybna uga hadalnay ardayga iyo waalidka, qaybta labaadna wuxuu ahaa ardayga iyo macalinka, qaybtaana wuxuu noqon doonaa ardayga iyo asxaabtiisa. xiriir noocee ayaa ka dhaxeeyo, maxaase laga rabaa ardayga markuu asxaab yeelanayo? maxaa yeelay saaxiibka mar walbo asagaa ah midka wanaagga iyo xumaanta ku hogaaminayo. xikmadii carbeed waxay ahayd can ilmar'i laa tas'al fas'al can qariinihi. qofka asaga ha weydiinin qofkan sidee waa dabeecadiisa ha dhihin, ee waxaad weydiisaa qofkan yuu saaxiib la yahay. qofka saaxiibka uu leeyahay ayuu ku dayanayaa mar walba, qofkaas ayuu ku diin yahay, qofkaas ayuu ku dhaqan yahay. ardayga marka waxaa laga rabaa markuu saaxiibo samaysanayo inuu samaysto asxaab fiican oo ku dardargelinaya dhanka waxbarashada. haddaad samaysato asxaab oo wada caajisoolayaal ah, oo akhrinta aan kugu dhiirigelinaynin, oo ayaga dhanba oo caajis ka samaysan, oo subax walba markii iskuulka la yimaado oo ayaga leh albaabka taagan, oo albaabka laga soo xiray, maalin walba ayaga leh taagan, markaa weydiisana wuxuu ku leeyahay aniga hurdaan kusoo daahay. haddii qofka hal maalin uu ka soo daahi karaa, laba maalin uu ka soo daahi karaa, laakiin qofkii joogto ka dhigta in albaabka xiisada koowaad laga xirto, haddii ninkaas saaxiib aad ka dhigato, asagana dabeecaddii uu lahaa ayuu kugu daaranayaa. waxaa laga yaabaa habeenkii inuu kugu dhafriyo waxyaabo maalayacni ah, adigana kadib subaxdii xiisadaada ka soo daahdo. sidoo kale ardayga waxaa waajib ku ah markuu asxaab yeelanayo inuu yeesho asxaab oo ku toosinayo wadada toosan, sida cabsida alle subxaanahu wa tacaala iyo salaadiisa. maxaa yeele maalinta qiyaamo dadka saaxiibada ah kuwana way is eedeynayaan, kuwana way is ammaanayaan. ilaah subxana wa taala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi saaxiibada maalinta qiyaamo qaarkooda qaar kale waxay isku yihiin waa cadow, ilaa kuwa ilaahay ka baqaaya mooye. waa la is eedeynaya, waxaa laleeyahay adaasaan yeelay, adaas yeelay. sidoo kale suuratu saad ilaah subxaanahu wa tacaala markii uu ka sheekeynaya ahlu naarta, asxaab fara badanaa meel iskugu imaanayaan oo ahlu janno ahaayeen, markaasay waxay iska dhex raadinayaan qof saaxiib la ahaan jiray adduunyada intay joogeen, ee jannada ka dhex waynayaan. markaasay waxay leeyihiin hebel ayaa naga maqane, aan soo raadino. hebelkii soo raadinayaan, markaasay waxay ku dhex arkayaan naarta dhexdeeda. markaasay waxay leeyihiin walla ilaahay waana badbaadiyey, haddii adiga aan ku raaci lahayn maanta naartan ayaana keeni lahayd. ardayga sidoo kale waxaa waajib ku ah markuu saaxiiba sabaysanayo saaxiibka inuu uga daydo dhinac walba. waalidiintiisa xitaa hadduu rabo inuu baari u noqdo, ardayga saaxiibkiisa ayaa ku dhiirigelin kara. maxaa yeelay arday qurux badan, diintiisa ku qurux badan, yani dhinac walbo alla ka cabsiisna uu dhisan yahay. xilliga imtixaanka markii la gaaro, arday isku wada xiran saaxiibo aad tihiin oo akhriska kugu dadaalaya, adigana xitaa haddaa caajisto arday ku soo wacaya saaxiibkaaga ku dhahayo warniyo xilliga imtixaanka wuu soo dhow yahay, akhriska ma akhrino. xitaa ku dhihi karo meeshaan meel buuq waaye, meel degan oo waxa aan ku akhrisan karno aan tagno. su'aal ahaan wuxuu ku leeyahay masjidka markii salaada laga baxo oo kale buuq wuu yaraanayaa, casharada aan ku celcelino. asxaabta wanaagsan waxay kugu hogaaminayaan jidka toosan, laakiin saaxiibka xun mar walba wuxuu kugu hogaaminayaa jidka khaloocan. maalinta qiyaamana waxaa ku badbaadin kara keliya wanaagga iyo jidka toosan uu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu noo jideeyay. haddaba waxaan isku dardaarmeynaa arday inaan samaysano asxaab wanaagsan, iyo qof walba oo muslim ahba saaxiibadiisa inay wanaagsanaadaan ayaa u fiican, si asaga uu u fiicnaado. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.